waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta ganacsiga. midda ganacsiga ana waxa ay tahay waa wax runta cajiib ah, sababtoo ah dadka inta badan uma sheegaan qaabka looga ganacsado. kaliya wuxuu kuu sheegaa qofka kooshka ah arinta caafimaadka ayuu kuu soo hormarsiina, waayo maadaama qof walba uu jecel yahay inuu caafimaadkiisa hormariyo, sheegayaan iyo life style-kaaga oo aad wax ka bedasho ayay kuu sheegayaan. si markaas life style-kaaga wax ugu bedasho waxay ku leeyihiin waa inaad isticmaashaa Herbalife-ka, laakiin kuma sheegayaan qaabka ganacsiga ah. qaabka ganacsiga ah runtii ayagu waxay lacag ku sameeyaan marka koowaad oo qofka uu galo lacag uu bixiyo wuu galay, waxayna leedahay levels. Supervisor jiro, world team jiro, ilaa qofka leveliska uu maaragta u gaaro. level walbana shuruudooyin ayay leedahay oo isdaba tixan ah, welibana waxaa laga rabaa inuu joogteeyo levelkaas si uu lacagtu helo. haddii uusan joogteyninna ma heli karo, taasoo dadka inta badan ay ku adkaanayso. tusaale ahaan productiga haddii la iibinayo 100, haddii la iibinayo euro, $100 haddii la iibinayo, waxaa qofka markuu levelada kamid uu gaaro waxaa la siinayaa wax loo yaqaano discount ama 50% discount. 50% ayaa laga dhimaa. haddii 100 marka la iibinayo 50 laga dhimay, wuxuu kusoo iibsadaa asaga 50, waxaa adiga kaaga iibinayaa marka 100, halkaasna wuxuu ka helay faa'iido 50 ah. waa sida caadiga ah. laakiin waxaa jirto markuu adiga kuu dalbo ama siyaabaha kale ay ku helaan lacagta waxaa kamid ah soo qalqaalin, inuu dadku kusoo qalqaaliyo, uu soo tashkiiliyo, uu soo xerogeliyo, taasna lacag ay ku helaan ay ku qaataan. sidee waxay ku qaataan? tusaale ahaan kambaniga markuu register gareeyo ayaga wuxuu siinayaa number ID number ayuu siinayaa. ID numberkaas ay ku aqoonsanaya. marka adiga uu ku leeyahay anaa kuu dalbaayo, aniga weydii, anaa koosh kuu ah, anaa kuu sheegayo, anaa ku tababarayo, adigu ma taqaanin qaabkaa u isticmaashid, dabcan wuxuu u dan leeyahay inuu maaragta asaga kuu dalbo. accountkiisa inuu furo, magacaaga uu kaa qaado, macluumaadkaaga o dhan uu kaa qaado, personal information, kadibna uu geliyo, kadibna uu kambanigii ID-giisa uu ku qoro, uu dalbo. qaabkaas wuxuu ku helaa marka commission. adiga lacagtii aad bixisay, asagana productiina waa heshay, asagana wuxuu helayaa commission. marka hadduu dad badan uu keeno, commissionkiisana wuu sii kordhaa, levelkana wuu sii kordhaa. marka asaga inuu wax badan iibsado shakhsiyan, levelka wuxuu kordhaa inuu asaga shakhsiyan wax badan iibsado, uu joogteeyo 4 bilood si joogtaa uu iibsado. maaragtay qofka kale ee tiimkiisa ku jirana inuu wax iibsado. marka intaas ku tagaana wuxuu gaarayaa levelska ayuu gaarayaa. marka haddii marka hore ay kuu sheegaan, qofka haddii uu rabana oo saas ku ogyahay wuu ku gali karaa, haddii uusan rabinna wuu ka joogi karaa. laakiin marka ugu horeysaba laguma sheegayo qaabka levelska u shaqeeyo, inuu qofka loo sheego, loo sharaxo, maadaama ganacsi ahaan uu u galayo. waxaa marka inay wax walba ay waadix ahaadaan. ganacsina wuxuu ku wanaagsan yahay in marka ugu horeysaba wax walba la cadeeyo, ay cad yihiin, aan wax mugdi aanan ku jirin. haddii mugdi uu ku jiro, ganacsigaas marka waxbaa la qariyay, saa daraadeed wuxuu ku dhammaanaa fashil. laakiin su-aasha waxay imaanaysaa qaabkaas dii lagu socdo faa'iido ma laga helaa? xaqiiqatan way adag tahay inuu qofka dad badan aad ku qalqaalisid, aad u ololeyo inaad iibsato ood geshid, dad badanna aad soo xerogelisid. way adag tahay, waayo qof walba waxay leeyahay maaragtay duruufihiisa gaarku ah ayuu leeyahay. dadkana maanta hadda anaga bulshadeena Soomaaliyeed la fiiriyo, horta Soomaaliya maba laga iibin karo oo ma taalo maanta Soomaaliya lama geen karo, mana ku jirto maaragtay kambaniga sharciyadiisa kuma jirto inuu Soomaaliya wadamada laga iibin karo ama la geen karo, ma aha. saa daraadeed waa inta qurbaha joogto. Africa dhowr wadan, 1 ama 2 ama 3 mid kamid ayaa ku jiro, inta kalena waa Yurub iyo Mareykanka. waxaa fahmaysaa haddii marka Soomaalideena marka horeba qurbaha marka dadka loo fiiriyo aan ku yarnahay, haddii qof walba marka productiga uu galo, waxaa arkaysaa marka inay soo yaraanaysa marka dhow dadka la keenayo. adigii marka inaad keento qof, hadda ugu dambayso way kugu adkaane, la mid ma noqonaysid qofkii ugu horeeyay. qofkii ugu horeeyay waxaa laga yaabaa dad badan inuu keeno,
laakiin adiga ugu dambeeyo way kugu sii adkaan doontaa inaad dad keento, waayo dadka waxay u kala bixi doonaan qof horay u galay ee ugu jiro iyo qof shaki ka qabo ee aanan rabin iyo qof aanan ganacsigaas badanaynaynin. marka way sii yaraanayaan dadkiina ilaa marka dambe ay noqoto inuu dadka ugu hooseeyo oo dhan productigaas shalfigooda ay ka buuxdo, iskafaalooda ama guryahooda ay u buuxdo oo qofka iibsadana aysan lahayn. waxyaabaha kale oo kambaniga lagu aadayo waxaa ka mid ah qaabka uu u shaqeeyo oo ah pyramid, kaasoo ah qaabka haramka oo kale, haramka ganacsiga noocaas oo kale ee haramka u dhisan si halkaadi kaga muuqato. waxaa waaye qaabka wuxuu u yaryahay qaybta kore wuxuuna u ballaaran yahay qaybta hoose, taasoo macnaheedu yahay lacagtu waxay kasoo maaragtay kasoo baxdaa dadka hoose, lacag ayay ka baxaysaa waxay tegaysaa qaybta kore si ay productiga u iibsadaan. korna waxaa ka imaanaya productiga alaabtii waxayna imaanaysaa hoos, saa daraadeed wixii lacaga waxay tegaysaa kor, wixii alaabtaana hoos, taasoo macnaheedu yahay qofba qofka uu ka sareeyo ayuu ka lacag badan yahay. waana ciriiri qaybta kore haddii aad aragto in yar 1% ama boqolkiiba hal dadka la yiraahdo ay ugu lacagta badan ayuu noqonaa. waa inta ugu horeysa keliya ugu lacag badan. waana ganacsi ahaan haddii qaabkaas ay u qirtaan ee lagu xaqiijiyana ay mamnuuc tahay asliyan ganacsiga xeerkaas inuu jiro. ganacsi noocaas oo kale ah faa'iido ma laha, faa'iidana lagama keeno, way adag tahay. oo dabcan dad badan oo Maraykan ayaa lacag ku lumiyay qaabka hadda halka idinkaga muuqato. Was a Herbalife distributor for 18 months, spent well over $7,000 and have not recouped any money. We lost at least $10,000. I lost between $14,000 and $18,000. to kale waxay sheeganayaan in lacag badan uga lunto. haddaba marka guntii iyo gabagabadii productiga noocaana marka caafimaad ahaan waxba yaa lagu bumboonin, marna ma ka wanaagsanaan karto cuntadeena caadiga ah ee organiga ah. haddii ganacsi la yiraahdana waxaa jiro options kaleeto oo aan dhibaato ka imaaneyn, lacagna kaaga dhumaynin, una baahnayn inaad dad badan aad soo xergeliso si aad lacag badan u heshid oo dadka maaragta soo xergeliso. taasina runtii ay adag tahay. halkan ayaan kusoo afmeerayaa muuqaalkayga maanta. waa inaan kulanti dambe hadduu Ilaahay yiraahdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.